haddii aad eebba xustid xilli walba iyo xaalad walba oo aad ku sugan tahay ogow daawada xuduudaada iyo xadkaaga cid soo xarig dhaafi karta oo xoog iyo xuquuq u leh inay xayndaabka alle dhaafto dabadeedna xumaan kula beegsan kartahay adiga ma jirto mana jiri doonto idanka alle adigu se ahaaw qof alla adeeca oo aadanaha adduunka kula nool ay ka ammaan helaan isha iyo inkaarta xaasidkaaga waxaad kaga xijaaban kartaa adoo alle aamina oo umuurahaaga ku ammaanaysta allah ma ku hoyan karto kumana harsan karto hoygeeda siday gabar iyo abeeso hal guri ugu wada noolan karaan subxaan allah abeesada haddaad ku dhex disho riyada dhexdeeda waad ka guulaysatay abeese iska socotoo la dila haddii la yidhaahdana cadow islaam ka mid ahaa dhintaa daawade si fadiilatu sheekh xasan ibraahim ciise uu kugu fasiro riyooyinka aad xilliga hurdada ku riyootid fadlan fariintaada inoogu soo dirir gmailka shaashada kaaga muuqda balse inta aana gudaha u gelin fasirka riyada gabadhaas walaal adigan hadda i daawanaya waxaad tahay qof wanaagsan si aan u helno qof sidaada oo kale u wanaagsan fadlan muuqaalkan share iyo like inoo dheh mahadsanid markanna aan gudaha u galno fasirka riyadii gabadhii guriga kula nooleed abeesada iyo fadiilatu sheekh xasan ibraahim ciise sheekh xasanow ilaahay ha ku xifdiya aakhiriya adduunba waxaan ahay gabar muslimada waxaan ka seexan waayey riyo aad iyo aad u xun taasoo ah in habeen waliba ay abeeso guriga iigu timaado sheekh way cuntaa abeesadu waxaan hurdada ka soo kacaa subaxii anigoo haraadsan anigoo ooman faruuryuhu i qalaleen jirka oo dhammi uu i daalan yahay balse sheekh habeenka aan akhristo adkaar waxaan riyo ahaan ku arkaa abeesadii oo iridda guriga ka sii baxaysa sheekh ilaahay ha ku karaameeya aakhiriya adduunba ee ii fasir maxay tahay riyadaas riyooyinka lagu riyoodo abeesooyinka iyo masaska waa cadow qofka cadow uu leeyahay mas haddii aad ku riyooto ama abeeso iska ka agtimaad iska ag fadhiisata waa cadow waxba kaa qaadeen insha allahu tacaala hadduu ku qaniino ama dhibaato ku gaarsiin waa cadow ku gaarsiin waxaa kaaga imaan kara xaggiisa dhibaatooyin abeesada haddaad ku dhex disho riyada dhexdeeda waad ka guulaysatay abeese iska socotoo la dila haddii la yidhaahdana cadow islaam ka mid ahaa dhintaa taana marka waa lagu fasiraa marka insha allahu tacaala cadow ayaa jira meeshuu kaaga jiraba qur-aankaad ka akhrisatayna wuu ku baaba'aa markaad joojisana wuu soo baxaa marka ilaahay ka magangal in badan qur-aan fara badanna akhrisaad hadda samaysay oo kale riyada bannaankeeda qur-aan fiican marka uga akhriso wixii cadowna ilaahay ha kaa qabto laakiin sideeda bahalooyinka noocaas oo kale cadow ayaa lagu fasiraa insha allahu tacaala waxaan kugula talin lahaa akhrinta qur-aanka aad wado ha joojinin wax badan ilaahay ka magangal subxaana wa tacaala markaad seexanayso adkaaraha lagu seexanayo akhriso haddii aad og tahay qof khilaaf idin dhex maray oo aad saas ku kala tagteen ood ku aamusan tihiinna isku day inaad raadiso sulxina aad markaa ka samaysa insha allahu tacaala dhexdiina subxaan allah ilaahow naga xijaab wax walba oo xumaan iyo xadgudub ku ah nolosheenna dhammaanteenba daawade ha hilmaamin inaad nagu dhiirigelisid inaad share iyo like inoo tiraahdid muuqaalkan si aan muuqaalo kale oo xiiso leh aan kuugu soo bandhigna adiga daawade ma jirtaa riyo aad adigu ku riyotay oo weli aan xusuustaada ka goyn haddii ay jirto fadlan fariintaada inoogu reeb qaybta hoose ee kommentiga sidoo kale daawade si aad ugu xiriiraatid qisooyinka talobixinada fasirka riyooyinka iyo guud ahaan dhacdooyinka arrimaha bulshada ee uu soo bandhigayo fadiilatu sheekh xasan ibraahim ciise fadlan follow share iyo like walaal nagula noqo insha allah